إن شاء الله نوحرشينا سدا لو أخريه سدا أيهين إنا وحلقة بدل دونين سدا أيهين يكون دقنجلي دونان إن شاء الله قضب ككواد وحلقوا ورجلنا يا شعب كرير بودلان إن دولة بودلان أي كجوانت هاي حرينتا قبل كسول وحرينتا قبل كسول يدمان ولك إن جمعان محوها أذوق هستو نمبر لبو aragti kasta oo ka soo horjeeda Puntland midnimadeeda wada jirkeeda iyo xoreynteeda waa dambi qaran cidii aaminsanna waxa loo aqoonsanaya u gargaara cadow sidaa daraadeed waxa lagu qaadayaa xeerka ciqaabta qodobka labaad hub kasta oo ku sifoobay ama loo arko inuu lid ku yahay xoreynta dhulka maqan wuxuu la mid noqonayaa hubka cadowga qodobka afraad taliye ciidan iyo mas'uul kasta oo xil ka haya maamulka Hargeysa oo ka soo baxa kana soo wareega muddada hawlgalku socoto wuxuu mutaysanayaa abaalmarin qodobka shanaad qof kasta oo ka soo jeeda deegaamada Puntland oo u shaqeeya maamulka Hargeysa kana tanaasuli waaya hagardaamada iyo waxyeelaynta shacabka reer Puntland wuxuu mudanayaa xeerka ciqaabta Puntland qodobka lixaad qof kasta oo cadowga Puntland qariya ama gabaad u noqda ama gabaad siiya isagoo ujeedadiisu tahay in lagu waxyeeleeyo shacabka iyo dawladda Puntland qofkaas wuxuu la dambi yahay cadowga uu qariyay wuxuuna ku sifoobayaa cadow waxaana lala tiigsanayaa sharciga qodobka toddobaad qof kasta oo gacan siiya qof u shaqeeya maamulka Hargeysa oo ay ku cadaato khiyaamo jaajusnimo ama siin xog waa dil aan lahayn mag qodobka sideedaad ma laha wax mag ah ama godob taliyaha askariga ama mas'uulka ka soo jeeda gobolada Puntland oo lagu dilo dagaalka isagoo u diriraya maamulka Hargeysa ee ah cadowga inaga soo horjeeda qodobka sagaalaad hanti kasta oo uu leeyahay qof reer Puntland oo loogu shaqeynayo maamulka Hargeysa waxa la wareegaya dawladda Puntland qodobka tobnaad maxkamadda ciidamadu waxa ay waajibkeeda ka gudanaysaa cid kasta oo faldambiyeed ka geysata goobta dagaalka sida dhac kufsi amar diido dil loo geysto dad rayida ama cid kale oo ka tirsan ciidamada iyo wixii lamida qodobka ugu dambeeya qodobka 11aad dawladda Puntland waxay cadeynaysaa in aysan cadow ku ahayn shacabka ku nool gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya nabadgelyadooda iyo jiritaankooda isla markaana waxa ay soo dhaweynaysaa cid kasta oo doonaysa xoojinta wadajirka iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed iyo xasiloonidooda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.